Aku xasday gabadha ay sheega. Dariskay booqata. Dariska. Xanuunsan bay booqata. Dadka xanuunsan. Naagaha dhinta bay ka fantaa. Kuwa dhintana. Islaanka isku yeedhtaa. Islaanka isku yeertaa. Waa ka fantaa. Way ka fantaa. Ya. Ninkeedii carruurteeda waa u baari. Ninkeedii carruurteeda waa u baari tan sheega. Shaqo badan tahay, firfircoon tahay. Way firfircoon tahay. Way shaqo badan tahay. booqashada ay ugu tagayso dadka xanuunsan ee muslimiinta ah meedadka oo ay ka qayb qaadanayso dhaqidooda iyo kafantooda baariga ay u tahay odageeda iyo carruurteeda ayaa dad ka xun wanaagga ay sameynayso haweenadeeni ku xisteen. haweenadan ayaa timid xarunta cilaajka ee Sheekh Cali Mukulli ee ku taala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari isla markaasna xilligan ka howlgalo Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli. Maxaa ku xasday gabadha ay sheega. Dariskay booqata. Dariska. Xanuunsan bay booqata. Dadka xanuunsan. Naagaha dhinta bay ka fantaa. Kuwa dhintana. Islaanka isku yeedhtaa. Islaanka isku yeertaa. Waa ka fantaa. Way ka fantaa. Ya. Ninkeedii carruurteeda waa u baari. Ninkeedii carruurteeda waa u baari. Imisa xasdatiin sheega. imisa shan dumar misragatiin rag iyo dumar baatiin maxaa ku xasdeen waxaan ku xasdeen carruurteeda iyo ninkeeda bay baari u tahay carruurteeda ninkeeda baari bay u tahay kow dariska waa booqataa yee booqataa dariska oo dhan way booqataa maxaa kaloo ku xasdeen sheega kan bukana way booqataa way u soo jeedaa way booqataa maxaa kaloo ku xasdeen sheega dadka ugu gargaartaa dadka ugu yeertaa waxbay ka kafantaa iyaduna dadka ugu yeertaa way karfantaa meedadka dhaqdaa way karfantaa saasay ku xasdeen ya maxaa dib u geysteen sheega shaqo badan tahay firfircoon tahay way firfircoon tahay way shaqo badan tahay maxaa dib u geysteen sheega intaasaan u geysteen maxaa dib u geysteen sheega ku dhan baanu ka haysanaa jirka waa ka haysataan xagee kala haystaan sheega meel kasta waa ka haysanaa xagee ka socdaan sheega xagee ka socdaan sheega dariska magaalada ka socdaan sheega Boosaaso dadka dhintay way karfantaa kuwa xanuunsan way booqataa kuwa dhintana way u soo jeedaa way booqataa kuwa dhintana way karfataa way dhaqdaa dumarkana ugu yeertaa saasay ku xasideen ninkeedii ilmaadana baari u tahay saasay ku xasideen miskaga tagaysaa soo dhimanaysaa shan baatiin xagee jirkeeda haystaan sheega meel kasta jeexa bidixda u badan meel kasta waa haystaan ma ka baxaysaa soo dhimaysaan ma ka dhimaysaan imisana ku jirtay gabadha ay sheega imisana ku jirtay sheega waxaan ku jiray 7 sano 8 sano ayaa ku jirteen saasay u haysateen maxaa ka dadka dhaqaysa muslimiinta حسد يا حسد بانو نهي حسد maxay u quurweyseen wanaageeda dadnimadeeda iyo wanaageeda aa u quurweyseen meedkee dhaqdaa saasay ku xasideen dadka xanuunsan ee boqotaa saasay ku xasideen ma ka tagaysaa soo dhimaysaa qof kasta xanuunsan oo dariska way ka warhaysaa iyo kuwa ka fogba ma ka baxaysaan haaya maya ku yidhi maanta kadib ma dhimaysaan mar damba dhimaysaan soo raac farta bixida gur wada bilayso daj gacmaha magaca عاقن يور سلقوا هاي جحاس الله يقبطها جحاس هي جح لقى قبطها إلا قول ما سكوارته تضبط سنة 6 سنة أي حنا سنة ميدتك محاكو سنة سادة دمر كا ها ميا دغدا دمر كنا ويرا waa dhaqdaa dumarkana yaa tiraada waana karfantaa dadka xanuunsanna dadka waa soo booqda dadka xanuunsanna soo booqata ehelka الله كقبتها من ده وناجي والسوق قوري سوماده واد أركيسان إلهي بقرك عزيزك أيام هذا يسكره الله كسر صار دبل إلهي قم السعودية آمين ده إليك أنا وح إلهي كرجنا يا بقرك إنه دبل إلهي قم السعودية وناجي وما تسوق قوري لايه بالقف كقف بوقدا والنبي عليه الصلاة والسلام حنوصن قربتي بوقدا تضباط كن أو ملك أيا أدعينيس إلا واجي وكبر يو النبي عليه الصلاة والسلام قف كسواحد بوقدا قف حنوصن أو غلالك يسوي حنوصن بوقدا nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam waagi markuu bariyo booqda ilaa uu ka galabaysto malaa'ig 7,000 oo malag ayaa u duceynayso nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga saasoo kale xadiiska muxuu ahaa nabigu yiri calayhi jannadan hay guri ayuu ka sameeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam wanaagi dardaarika nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka xanuunsan qofka in la booqdo ah ma garanaysaa ayaa maanta isku xasdaya meedadkii dhaqdaa qofka maanta meedka ahaa waajibka qofka muslimka saaran inuu asturo oo ma garanaysaa karfano uu ku tukado la aaso samade soo sida maaha tiima maanta la isku qoori laayay wixii waa soo dhaaftay ilaahiga boqorka casiiska ahaa ayaan ma garanaysaa ka magan galaynaa sharkooda ma maqlaysid oo fiirsada ma maqlaysid gabadhaani waa qof isla wareegta waa qof suuqa saa u wareegta ma maqlaysid oo laga qeylinayo
qofka wanaagsan baa sidaas oo kale loo dhibaya oo laga qeylinaya way dhalmo badan tahay way astur badan tahay way xifdin badan tahay waxbarashada ku fiican tahay quraanka ku fiican tahay awlaadda u fiican tahay ninkii u fiican tahay shaqada ku fiican tahay fiicnaan baa qofkii maanta lagu cunaya qof xun oo laga hadlaayo inta aan shaqeynaayo wali maana arag inta ilaahay nacib yahay oo laga hadlaayo ama laga qeylinayo midna arkimays dadka wanaagsan oo fiican shaydaanka ku dadaalaya wanaag mar rabo aakhire loo shaqeysto mar rabo adduunyada garanaysa laga shaqeysto mar rabo qof walba wuxuu rabaa xumahaas iyo garanaysa gabadhii wanaagsanada guriga joogtay suuqayda wareegaysa arkaysa ninkeeda baari u heed ninkeeda ku afcilinaysa arkaysa waxbarashada ku fiicneed waxbarashada seegseeg baad ku arkaysa shaqada ku fiicneed shaqada seegseeg baad ku arkaysa waxaas oo dhan waa noocaas xasadka ishiisa iyo sixirka sameynaya Allah naga qabto Allah ku caafiya min